بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر ومحسن هاي أديك يو بعد VOA ولا لو طبعا قابل يودن بيتنا سجلنا شركة دعونا طبعا كيوكوبي طبعا كيش أربعة خميس أحد يلا يدمو إن وجودي سومالي قارنا وقت من قارنا إن شاء الله أفر لو كان ساعة توضعها أي نسوي جاري دون تحد يلا يدمو إن وحنا نجاي دولتنا مرتين جلنا UK يو UN سويدنا شركة كمدة دتك مسؤولين تكع عن سلوّدنا هنا عن سلوّد ديارنا وبدي يقدم بيجي ولا الله يشرف كسر بحلها ديارنا سو هذا كله يشوفنا. marka bal hadaad mid iyo laba nooga taabato ajandayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajandaha ee shirku muxuu yahay waxa afar qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo dib u soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka iyagana waa qodob kale oo muhiim ah kana afraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka afarta sano soo socota haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn dabcan dadka aan hor imaanayno ilaa iyo afar sanameeyo dowladood iyo hay'ado caalami isugu jira iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba marka waan soo fadhiisanaynaa insha allahu tacaala anu ka wada hadlayna maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay waddanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyey waa runtii su-aal muhiim ah waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta intaad og tahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday isbedel ayaa yimid hoggaan cusub ayaa dalka yimid fursad weyn ayay u tahay hoggaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan in haddana beesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka helaan marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii alla idmo intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo soomaalida wax weyn u tari doona kasoo bixi doona oo ay kamid tahay in ciidanka amisom ciidankeenana loo dhisi doono amisomna aan rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa marka dambe amniga aan annaga gacanta ku dhigno inaan ka hadlayno inaan helno sidii wadnaqabataynta xagga hubka ah soomaaliya saaran looga qaadi lahaa deegaanka soomaaliya lagu leeyahay in la cagsiyo in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka siyaasadana aan la nimaadno wadadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2020 haddii alla ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha ka soo baxay sidii loo maalgelin lahaa in badan oo kamid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno in badan oo nalagu taageeri doona haddii alla laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda ugu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa kamid ah cagsiinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay soomaaliya iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyo maxaa yeele haddii taasna laga codsiiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno ugu dambeyntii ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 10 iyo 11 dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya matalaysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qaybgalaya shirkaasi waxaa jira kulamo aad u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee ka soo qaybgalaysa shirka oo ay ugu horeeyaan madaxda dabcan dalkan aan martida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aad u fara badan iyo hay'adaha aad u fara badan ay imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka waxaa kaloo jira kulamo gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed ay iman doonaan mid ku saabsan qurbo-joogta iyo bulshada rayidka ah iyagana natiijooyinaa kasoo bixi doona haddii alla idmo ganacsatada iyo qurbo-joogta iyo bulshada rayidka ah kaalintay ku leeyihiin dibudhiska dalka